بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركلة iyo video cusub kusoo dhawaada gacmo furan iyo qalbi saafi ah. Maanta waxaan idiin hayaa qisadaaseti oo qiso aniga naftirkeyga marar badan markaan dhageysto aad aan ula tacajabay ama aad ayaan uga helay. Waxaa laga yaabaa qaarkeen haddii ay fiirsadaan inay fikrad ka helaan ama ay wax ka qaataan ama ay ku cibro qaataan, ay wax ka bartaan. Sideedana nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay kuwiina xanuunsan ku daaweeya sadaqada. Sadaqada waxaa la ogyahay inay damiso carada ilaahay eena furto wax walba oo kaa xiran. Haddaad u niyeysato inamal acmaal biniyaad, waa markaa u niyeysato wax walba oo u baahan tahay sadaqada aad baxsanaysid inaad u niyeysato. Marka sadaqada wax weyn ayay tartaa. waa ninkii maxay ahayd ninkii dhiibay $100,000 iyo wax ka badan oo ku raadinayay hal cunug inay xaaskiisa u hesho. ilaahay duco ay u duceysay qof maskiin ee sadaqa ay siisay haweeneydiisa ama xaaskiisa ilaahay ku siiyey 3 caruur. subxaan allah, ilaahay waa qaadir, waa ilaahay wax walba asaga awood. xataa haddii wax walba isdhahdid ma dhacayaan, impossible waaye. wax walba meel kasta kaa soo xirmaan, ha quusanin. sadaqada albaab walbay furtaa, wax walba balaayo kugu soo socotin way kaa celisaa, carad ilaahay way damisaa. marka haddii wax adag ay jiraan ama wax kugu adag ay jiraan, la bax sadaqo, niyeyso inuu ilaahay ku sahlaa. laga yaaba ilaahay waa ku sahlaa. wax walbana saa u raadisid ayaa u helaysaa. kulligeena waa inaan wax kaga dayanaa oo ku cibro qaadanaa. marka ninkaaneti haweeney ayuu qabay, asaga haween kale ayuu qabaa amba gabar kaleenta ama xaas kale ayuu qabaa oo caruur u dhashay. laakiin xaaska kii labaad waxbay u dhali weysay, wuu soo guursaday, waxbaa u dhali weysay. muddo 6 sanadood ayay ku qaadatay inay ubad raadiyaan. ubad raadinta ilaah ubadka bixiyay 6 sano ayay ku qaadatay. isbitaal walba wuxuu dhahay waan geeyey, meel walba waan geeyey, weel walba. asaga ma quusan, ayadana ma quusan. asaga ilmo haysta alxamdulilah, laakiin haweeneydiisa wuxuu dhahay aan jeclahay darteeda aan meel walba ula tagayo. wallaahi aad aan uga helay hadalkiisa. marka meel walba waa la gelaya, isbitaal walba, meel walba waa la tagaya. ilmay rabtaa haweeneydii xaaskiisii labaad. asaga dhowr caruur haystaa, xaas koowaad ee u dhashay ninkaaseti. marka nin oo xawaa horta nin caan oo sheekh waa, sheekh alqur'aan, xaafid alqur'aan, caalim weyn waa. sheekh caadil kalbaani allah magaciisa. qisadiisa qiso aan aad uga helay, waa ka helay, waa isoo jiidatay, aaday iisoo jiidatay. ma aqaana, marar badan waa fiirsaday. waxaa jeclaystay inaa idinkana aan idin soo gudbiyo. marka wuxuu dhahay xaaskeyga wuxuu dhahay waxbay dhali weysay. u dhahay 6 sanadood ayay nagu qaadatay u dhahay inay wax dhasho. isbitaal walba, meel walba waa geeyaa. inta ka bax, xagga ka bax. qofka markuu xanuunsan yahay ama wax raadinayo waxaa waaye ma quusanayo. mar walba waa lacago badan, $100,000 ku dhawaad amba ka badan, wax kasii badan u dhahay ayaa iiga nooga baxday u dhahay inta ubadka aa raadineyni hal cunug le inay hesho. subxaan allah. marka ilaahay wuxuu qadari doonaa 100,000 in lagu waa hal cunug, 3 cunug in haweeney miskiin ay u duceyso ilaahay oo ku siiyey 3 caruur. markaasuu dhahay gabar shaqaale ah noo joogtay, gabadhi shaqaalaha way xanuunsatay u dhahay. markaasaa xaaskiisa waxay ku dhahday way xanuunsan tahay, shaqaaladii way xanuunsan tahay. marka waxaa kusoo baxay cudurkii xumaaya ku dhacay. marka waa inaan dirnaa. waa dirnay u dhahay, lacag iyo waan siinay, wadankeeda aan u dirnay, eedaan ku mashquulnay. adiga muxuu dhahay isbitaal maalmaha kamid marka waxaa imaatay u dhahay soo dohdiisa naagta u qabo xaaskiisa hooyadeeda imaatay. adiga isbitaalkii ma la quusanaa, ilma raadintii lagu jiraa maho. isbitaalkii u dhahay markaa aadnay u dhahay haweeney miskiin oo gaari lagu riixaayo oon socon karin. adiga iska miskiin haweeneyda saytiya. marka way tuugto, yacni dadkay wax weydiisataa, qof iska miskiin waayo. markaasuu wuxuu dhahay markaasay waxay dhahday
way u diirnaxday u dhahay 100 riyaal oo boorsadeeda ku jiray ee usoo bixisay u dhahay 100 riyaal ee ku jira wax kale maxay markaasay waxay dhahday maxaan kugu duceeyaa ducadeeda waa la ajiibaya صح dad ducadooda mustajaab ay tahay ay jirto subxaanahu wa tacaala ilaahay adoomadiisa kala ma jeclo waa wada jecel yahay laakiin qofka taqiga oo ilaahay u dhow oo qalbigiisa nadiifka ah oo daacad ee mar walba ducadiisa waa la ajiibaa markaasay waxay dhahday ducadeeda waa la ajiibaaye maqbuul waaye maxaan kugu duceeyaa ayay dhahday markaas hooyadeeda waxay dhahday ugu duceey in awlaad ilaahay siiyo markaasaa awlaad ilaahay ha ku siiyo meeshii ugu duceysay waa la kala tagay marka wuxuu dhahay 2 bil kama soo wareegin uu dhahay xaaskeyga uur ayay yeelatay uu dhahay gabadhay dhashay haddana waa la joogay wiilay dhashay haddana waa la joogay wiil kale dhashay marka $100,000 wixii aan ku raadinay hal cunug oo aan ku waayay duco haweeney miskiin ah ee duceysay yani 100 riyaal oo la siiyay in ilaahay ku siiyay marka sadaqada waxa waa fadligeeda wax weyn waa ma soo koobi karo haddaad xanuunsan tahay sadaqada baxso u niyeyso in ilaahay kugu daaweeyo ilaahay caafimaad kugu siiyo haddii wax ay si ka yihiin haddii wax ay ka adag yihiin haddii umuur ay jiraan ku toosi waayo kaleente la bax sadaqada yani wax walba u niyeyso haddii ubadka ilaahay ubadka bixiyo inta ubad raadinta ku jirta ayagana oo rabto ubadka ilaahay idin wada siiyo kulligeen allahna wada siiyo marka ayagana yani la bax sadaqada la bax u niyeyso markaad bixinaysid niyadaada ha ahaato in ilaahay awlaad kugu siiyo waxaad adiga ilaahay ka baridana waad helaysaa marka in walba oo muslim ah qof walba muraadkiisa ilaahay u sahlo qof walba wixii ka dhiman ilaahay ha u dhameystiro qofka awlaad raadinaya ilaahay ha siiyo kii haystana awlaadiisa ilaahay ha u dhaafo maasha allah tabaaraka allah nicmo waa kulligeen allahna wada siiyo awlaada marka haddaad raadinayso awlaadana taas horta sadaqada waaye qisadaas yeetay marka qisadaas aan jeclaysta inaan idin la qaybsado dad awlaad raadinayso ducooyin waxaa jira loo akhristo awlaad raadinta marka ducooyinkaas yeetay akhri badi rabbi laa tadarnii fardan wa anta alkhayru alwaarihiin rabbi habli min ladunka duriyata tayiba innaka samiicun ducaa waa badan yihiin ducooyinka loo akhristo marka u akhriso ducooyinkaas yeetay u akhriso sadaqadana wax muhiim waa balaayo soo socota ayay celisaa ayay xijaabtaa carada way damisaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam waatuu dhahay ku daaweeya kuwiin xanuunsan sadaqada marka qisadaas aniga aada u jeclaystay ma aqaan mar walba waa fiirsado mar walba aan dhageysto mar walba waxay wax oo cajalad camal ma aqaan laga yaabay aniga xataa inay igu socoto masaajkaaseti ma aqaan qaarkeen inay ka faa'iideystaan laga yaabaa marka waxaan jeclaystay qisadaas maantay inaan idin la qaybsado oo ku mahadsantahay daawashadaada waqtigaaga qaaliga aad i siisay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jaa